xaflad weyn oo maanta lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xilka lagu dhaariyay 22 sarkaal oo ku soo biiray ciidanka amniga iyo sharci ilaalinta ee loo yaqaan Sheriff kuwaasi oo ku jiray sarkaal Soomaali ah. Saraakiishan ayaa saldhigoodu uu noqon doona degmada Hennepin ee gobolka Minnesota. Deputy Sheriff Ahmed Ismail Owl. أحمد سعيد علي إسماعيل oo kamid ah saraakiisha maanta loo dhaariyay xilka cusub ee ciidanka amniga iyo sharci ilaalinta ee loo yaqaan Sheriff oo la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay inuu in muddo ah ku taamiyay inuu maalin uu kamid noqdo ciidanka si uu caawiyo shacabka Mareykanka iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada hoostaga degmada Hennepin oo ay ku jirto magaalada Minneapolis. horta hamigaygu maxaa wax badan inaan barto waa ku hamiyay laakiinse markaan high schoolka ku jiray baan aad ugu hamiyay inaan booliiska ka qayb galo. Axmed ayaa sidoo kale sharaxaya shaqada uu qaban doono bulshada iyo farqa u dhaxeeya booliiska iyo sheriffka. Booliiska iyo sheriffka horta isku wax bay qabtaan laakiinse sheriffka anaga waxa kaga duwanahay markii qofka la soo xidho muxuu ahaa oo markaasaan anagu kala wareegnaa booliiska waxa qofka maxkamadda soo taagaysa ilaa maxkamaddu ay ka soconayso ilaa qofka kan xukun laga gaadhayo ama go'aan laga gaadhayo muxuu anagu shaqadayadu waa taas. Axmed Saciid ayaa jeclaan jiray inuu caawiyo bulshada Soomaaliyeed isagoo ku taamin jiray inuu ku biiro ciidanka amniga sida uu TV-ga Universal u sheegay walaalkiis oo lagu magacaabo Sakariye Saciid Cali. weligii intuu markuu yaraa wuxuu ka fikiri jiray communitygiisa always wuxuu rabay inuu communitygiisa galo dadka caawiyo dadkii caawinaad u baahan oo u tago wuu arkay anagu waxaanu ka nimi Soomaaliya oo government fiican ma lahayn stable ma ahayn soo halka markuu yimi wuxuu arkay dadka inay Soomaalidu caawinaad u baahan yihiin. Taliyaha ciidanka amniga iyo sharci ilaalinta degmada Hennepin ee gobolka Minnesota Dave Hatch oo la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay sida tan. So I just want to thank all the Somalis and East African for xilligii doorashada waxa soo garab galay isla markaana wanaajiyay bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada ka soo jeeda bariga Afrika ee ku nool degmada Hennepin. Waxa sidoo kale aan ku faraxsanahay in uu xafiiskayga ku soo biiro sarkaal buuxiyay shuruudii ciidan oo Soomaali ah. waxaan rajaynayaa in ay kuwa kale ay ku soo biiraan fadlan soo codsada si aad noogu mid noqotaan. Cabdidheere oo ka tirsan xafiiska isku xirka ciidanka amniga iyo sharci ilaalinta iyo bulshada ayaa TV-ga Universal la hadlay wuxuuna yiri anigu xafiiska sheriffka 9 sano ka shaqeynayay waa qofkii labaad oo maartay oo la shaqaalaysiyo laakiin waa qofkii koowaad xafiiskan hadda oo maamulkan cusub oo sheriffka la shaqaalaysiyo waa arin aad farxad leh. sidoo kale waxaa jiray sarkaal kale oo ku biiray ciidanka ilaalada xabsiyada ee lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed oo isaguna isla goobta lagu dhaariyay. Detention Deputy Abda Rashid Mohammed. dambe waxaa gobolka Minnesota iyo gobollo kale oo ka tirsan dalka Mareykanka ku soo badanayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku biiraya ciidanka gaar ahaan booliska taasoo keentay in sidoo kale ay sameystaan urur ay ku mideysan yihiin. Maxamed Muuse Nuur deeq darajo Universal TV Minnesota. Hoya Hawaii wadera abo hoya Hawaii بابا وحيسوي حسوس حافظيه ما انت انت ذاك كريم وايد ما شاء الله ما شاء الله قال معاك قال لا ما انت وايد رفعتك عن صومالي ما عليك اسمعها سيقول اخينا كاسي بحسب وايد والله انت ما شاء الله ما ادري حبال كان برا قد بيسمع ما شاء الله سواي بابا اي لا بيسمع حواي يقول قبل شغلك يسوي سؤال شغلك ايمان بابا حبي وياك صار معنا لا اوكي سافا شو عم بقول ما قبل انا عم بقول لك وصباحي يا عم قبل انا
حبيبي صوت أرسنال ولا ما شاء الله بابا أي ما تحسوا بشيء شك لا ما تحسوا بشيء لا ما حسوا هذا الكل سيالة محل عايش كنت كنت أنا ما ايش عندكم سمينا انت هاي شكلكم هاي تكالي انت انت سمين انا وين تعلم ممكن اي شيء كذا لا بقى كل شيء سوق هاي كل واستغاثة ما حسوا بكسير أعطيك فراغ لي تكلم ودمي محل هاي واجوتين أنا كان بس ماشي كده كون كمية كلها كان كيلو كون كلها باوك حتى تكتب بودويس ما لهين أما بقول لك أجيب وأكيد ده صار لو تعرف له وأكيد أردش وأدري له هاي كلها دجال كودي بأخذ إيش هذا إيش هذا انا ما بقص لهم تام مركا ما دسانا كوجي على حي لا فراليو هاي ما مش هون ده عارفين وسوا بحذا يا غير الله زي نمبر كيسيس وهلا قدامي يبه يا هلا قدامي وعلنا هلا قدامي يا وهلا قدامي سب دمس أوهاد وهلا قدامي باكو علنا هذا markaas waa iska dhici karta inay gacanta ku dhacday ma dhici karto gacanta inay ku dhacday aa dhici karto aad u dhaxeeya si fiican u dhaxeeya kulli xaajadu waa culusta waa isbedesha xaajada ya waa leegu damiyey heerkaas maan gaari ya garoorka abtigaa maxaa ku gaarsiiyey aaliyar يا المفروض ما تكون شو احترم حوالي ليش والله بسم الله راح نسوي عن معها بلاد يقصوعوا حبيبي يقصوعوا شو لا فبقى وش امريسي كي الماء كده شنو برر تليفون كده ما بحايب ايوه يا بلا عرفتوا كجرلان يا انا بقى سيرته والله يا بلا بكي سيكر هلو هلو يا واي مريسة waa abo mooye يا واي مريسة waa xaaskaaga waay xaaskaaga waay aniga xaaskay waa la joogaa badda maa kusoo tufta maanta badda maa kusoo tufta badda ya ani adi owlaadaa naga dhexayso waxaa naga dhexeeyo ma fahmaysaa mana i dhihi kartid muxuu ahaa badda maa kusoo tuftay telefoonna ma tuuran kartid mooye ma ogtahay horta ina ani igu sharciyaysantahay adiga naa kale ma gursan kartid ya maxaan basistood dhex seexdo maxaan faynos barbariyay maxay eeya i eryadeeno maxaan maksiyar dhex seexday markaan miyarada la joogo muraniyo qayla ma rabo adkayso markaaga adkayso markaaga mi weytaay mar dambana hayso waxaan adkayso markaaga mi weytaay mar dambana hayso waxaan mar dambe hayso wacan mar dambana hayso wacan كدمي naga tagde واو بحال naga tagde okay sheekada maanta ana i taagan tahay sheekada mariisoy aniga ee i taagan tahay mooyaa kuu soo heray horta waa tagsiilo xun waxaa kuusoo hirtay sharciyada waddanka inuu si fiican u barto waay ana ugu qoran yahay ana ugu rajista garaysan yahay naa kale ma guursan karo maba samayn karabo laba naagood qofkii waddankaa ku guursada dambi waay waa dambi tan saddexaadaa kuusoo hirtay tan saddexaad hadduu baxa xataa 7 cunuga haya lacagtiisa 20 ama 30 usoo herayso 100 usoo herayso wax usoo heray ma jirto waxa la soo baarayaa meel kasto
saas inaan kuu daba socdo mooyo aan ballan iyo ahdi kaaga qaaday ana idhadaa miya xaaskaygaan la joogaa waa arki doontaa mooyo shiiday habeen midab dahabkilay manka deeqay naftaa dawadeedi tahay nimadada naftii loogu doo galaya daqaradii cishqaygu durba wuu i helay dab la shiiday habeen midab dahabkilay manka deeqay naftaa dawadeedi tahay nimadada naftii loogu doo galaya daqaradii cishqaygu durba wuu i helay aan dalxiisno hawaada ku dabaaldegna kadabila galoo dalka ka halay baro dalxiisno hawaada ku dabaaldegna kadabila galoo dalka ka halay baro dalxiisno hawaada ku dabaaldegna kadabila galoo dalka ka halay baro dalxiisno hawaada ku dabaaldegna kadabila galoo dalka ka halay baro doyo roob helo waabiyadu turtuuri dihin ciidaho yaa wacan dunida daymanulaho lagu dihin sadiyo dasaweeye jigjiga kaalay ila dekeeye doyo roob helo waabiyadu turtuuri dihin ciidaho yaa wacan dunida daymanulaho lagu dihin sadiyo dasaweeye jigjiga kaalay ila dekeeye dambar laga helaa dugsi ubax la iyo damalcihi udgoonta la iyo wadheer maku daax furaa dararkii bulaale madayn kare jarar baday dhaliyo dambar laga helaa dugsi ubax la iyo damalcihi udgoonta la iyo wadheer maku daax furaa kaskadaba sene turturehe qulqula kaalidaha reara gacalkii webiga horu markii balshabehe la daaya kaskadaba sene turturehe qulqula kaalidaha reara gacalkii webiga horu markii balshabehe la daaya doyo roob helo waabiyadu turtuuri dihin ciidaho yaa wacan dunida daymanulaho lagu dihin sadiyo dasaweeye jigjiga kaalay ila dekeeye doyo roob helo waabiyadu turtuuri dihin ciidaho yaa wacan dunida daymanulaho lagu dihin sadiyo dasaweeye jigjiga kaalay ila dekeeye
dubkiiba loo xiro dadka jecel idaa argaley tagaan indhaha dawooba marka haddaye dusha xamara iyo erdahagsana dunta boqorka iyo dubkiiba loo xiro dadka jecel idaa argaley tagaan indhaha dawooba marka haddaye dusha xamara iyo erdahagsana dusha buurtay biyuu daawanooyihiin dugsi weeye horaysiti dooru tahay dusha buurtay biyuu daawanooyihiin dugsi weeye horaysiti dooru tahay dusha buurtay biyuu daawanooyihiin dugsi weeye horaysiti dooru tahay dusha buurtay biyuu daawanooyihiin dugsi weeye horaysiti dooru tahay wasocodkiyo dalki laga baxyo dal jirta adaa dunta loo igu socodkiyo dalki laga baxyo dal jirtaha cada dunta loogu xidhaye wasocodkiyo dalki laga baxyo dal jirta adaa dunta loo igu socodkiyo dalki laga baxyo dal jirtaha cada dunta loogu xidhaye arweelo saaka ayaan kugu soo kalahay xalow dhan hurdo iga soo dhici weyse dembi weyn aanan ku gastay qalbigana waa kaa jib fiyooraha daata amra adiga ku dhigto mahan xagad keentay ma garan karo aniga see ku garan weyse wixii lagu dhiibo haddaa soo diyaci maxaa sameynaa dhantii hore kan waa mishanka koowaad waa laabi karaa laakiin kan kale wixii aan maanta ku daalaynay aaba khasaarisay yaa mid kale kula geli kara adiga saaxiibkay wuxuu rabaa inuu isoo doonto gurigana ma geyn kari oo hooyii aabbo way isdagaal wiilka ana ii keenay qof kale ma u geynaysta cid kale ma kala tashanaysa aabaha maalinta nikaaxa aabaha loo wacaya ma fahamta hooyo dardaarankeyga si fiican u dhegeyso odaygaas waa madax adagyaha hooyada hadalkeeda daa aabbo hawshani ma aha howl dumareed waa howl rageed aabbo dhaqan baynu leenahay iyo soo jireen aabbo anigu waxaan ahay aabbihii adigoo ku bixin lahaa hooyana waxay qaabilsan tahay markii lagu guursado inay guriga soo fiiqdo maadaama isguursaran waxaa rabaa filimkeen inaan soo afjaro in badan ayaa isnaqaanay wax badan ayaa isla socnaa sheekadan haddaa soo gabagabeeya see u aragtaa waa wax fiican wax badanaa bootaynaysay maanta aqaanaa bal caawa waxaa haysid aan arko waa cadarahaaga caawa meesha soo bandhig oo bootadii teleefonka aan ku hay marumood ikolkole kaala hunoy marka aad qof baratid ama saaxiib aad samaysanaysid ma ogid
dabeecadda runta oo u qarsoon balse qofna isma qariyo runta mar walba way caddaataa